الحمد لله رب المشارق والمغارب الذي خلق الإنسان من طين لازب، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا ربينا تعالي قارة عن جنسه بالبيو كشنا نخلص صعدة صوت أوحى عن هاي أرضيون إن بدنا ونكون مشغولين أنا صورنا فيديو مركا إن شاء الله تعالى هذه حاشة قارة بني قادني سين الدوال إدمه ما ترى وحنا نترجلنا هنا نيجي صورنا فيديو كشيكين يا علاج مركا لقى فيديو كهربا كحد لنا قسوة القلب waxaan ka soo sheekeynay acraad iyo qofku waxyaalihi isku arkay waxaan maantana waxaan ka soo hadalnay hadana kii ku xigay asbaabta aan ka hadalno waxa qofka ku keeni kara qaswatul qalb ugu dambeyn maantana waxaan ka hadli doonaa insha Allah ilaajkii waxaan nagu qoran Quraanka Cabdiraxmaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أسوي الشيخ عبد الرحمن كلي مشغول يربى يرجري الدورة معمول ويتا، لكن إن شاء الله حنسكت حرفين دون مع ناس وصعود في بدن نوصل إن شاء الله بإذن الله تعالى. كلي waxaan ka soo hadalnay laba fiidiyoo hore silsiladana bixinay qaswatul qalb oo kaga hadalnay laba mawduuc hore oo soo sheegay Cabdiraxmaan oo mid ahayd asbaabta ta kalena ay ahayd acraad. marka maanta waxaan ka hadlaynaa بإذن الله تعالى adduunka noo suurta geliyo waxa la yiraahdo ilaaju qaswatul qalb. marka insha Allah dhowr qodob baan halkan ku sheegi doonaa بإذن الله تعالى. qodobka koowaad waxa weeyaan waxyaabaha ka caawinaya inaad cilaaj ka hesho qaswatul qalb kow waxa ka annadaru fi aayaati alqur'aan alkariim inaad runtii waqtigaaga aad haysato 24 saacadood inaad u samayso waqti kamid ah waayo iminka waxa laga yaabaa badanka inteena dambe waayo ajiyaashii ugu horreysay waxaan haysan iminka aan nagu haysanaa oo fawaa'id laakiin sidii ugu wanaagsanada lama haysan faa'iideyso iminka mobilada smartphones kala laho la isticmaalo ama internet badanka waxa laga yaabaa qofkii 24 saacadood waxa laga yaabaa qofka ugu yareynaysa 4 saacadood ama 3 saacadood ku qaato. marka waxa laga baahan yahay sidaad kaabaha isku taxajunaysa inaad ama hadidmaan u samaysay inaad nuurka soo qaadato oo aad Facebook ada tahay ama hadii YouTube tahay waxyaabo kala daawato soo kala waa inaad idmaan u samaysay inaad quraanka akhrisato saacado u samaysato هذه الله لمن أجود. النظر في آيات القرآن الكريم هو وحي كعاونية إن قسوة القلب يتكبح العلاج كذا شو سواء كلا التفكر ما هم إسكاخر صوتين كسواخر سكون يسين واحد شيء نصو يرون بري أبيه يوحي كشيء ما كست القرآن كأخرياء لكن أنا حفتين. كان يقول أبو محمد كما كسر القرآن كأخرياء لكن ما حفتين. محمد كأبو محمد وصل مسابقه أبوه حيوان تصور خير من هذا إلى هذا هاي وقف القرآن آخره رجع يقول واحد سوق هذا بلد بينادي وسط كذا العام وسط كفران أو أنا محيد بيها هذه المدي رجع يقول برا بداك بينا صوت البين كان هيك بعد ما رجع بعد أسكرة أو أسكرة وروح سبوبامات كيو حيوان محيد البهنين مو وشون ها أسكبوها مركا ما يبقى صوت البيها بيو كسر دهان جري بدنا نروح كين جري بالك يوم بدنا نكون جركم مقاطع لو تشاسوا مسلمين أيوكم مركورة صدوها من جلان سباد وها أسكبوها يوم كان أقوى نظيف محمد كان نظيف كريم بيه مسوق هذه مركز هذا ردد ويقول قرآن خوف قدوا أخيرا من حفتين حتى وحب حيدا سدا بلد من نظيفين خوف قلبي يسمع نظيفين قالوا ترى مهم من القرآن كأخرنا وعن سدا كتفكر نقصنا عن أكل وجهه تفكر نقصنا آيات القرآن سياسة كلا آيات الكون ورسل سنين وأنتوا ومجزمين إنهم تفكرنا وضعهم تسوق قدر كلمات وحويا المعرفة بالله تعالى أنت إن هذه الله قرأته حق معرفة حق المعرفة أنت إلهي قرشنيسو
asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa runtii waxaad maxay ahayd taasina ay ku keenaysaa inaad cilaajkii aad la timaado qaswatul qalb runtii qofku hadduu eego cadamatullah runtii qalbigiisa u bandhigo qalbigiisa waxa ku dhacaya layin buu noqonaya runtii u jilcaya marka taasina waxay ka mid tahay inaad runtii ilaahay garato xaqa almacrifa waxay ka mid tahay cilaaju qaswatil qalb qodobka saddexaad insha allah kaa doono walaalahay waxa weeye الاكثار من التوبه والذكر والاستغفار صدح شيء صدح مهم التوبه runtii qofku markasta ma ahaanay qof wanaag uu sameeyo wax laga yaabo ilaahay baa maxaa idin uga dhigay ilaahay baa shaydaan inuu keenay adduunka dada shaydaankaasi shaqo kale ma hayo waayaabo inuu runtii ku dhacsiiyo macaasiyo xun laakiin waxaa adiina lagaa baahan yahay inaad ilaahay halkiisa u qabato firru ila allahi iyo soo kale inaad maxay waxaa la yidhahdaa ilaahay waa laga carabaa soo ilaahay waa laga carabaa ilaahay waa loo carabaa marka runtii inaad taala timaado markasta toobala timaado wakiina maxamed lahaa khayru khataa'ina tawaabiin ka kuwa maxay dembiga gala waxa ugu khayr badan kuwaad kasoo toobadkeen sidoo kale istikfaar inaad timaado iyo dikrigu runtii waa shay muhiima qofku inuu markaste fi kulli axyaanihi inuu qofku markasta ilaahay xuso waa shay aada muhiim u runtii qodobka afraad in hadduu ilaahay ka hadli doono waxa weeye mucaahadatu nafsi wa muxaasabatuha runtii naftu waa maxay hadba sidaad u laylisoon weeye haddaad badanka waxaa la yidhahdaa qofka hadduu siraano in wanaagsan baa tahay mar haddaad 5 salaadood tukato maxaad kaa dhiman 5 salaadood ma tukato wax kaa dhiman ma jirto laakiin waxaa taa haddaad la timaado waxa laga yaabaa quruur bulshada hugelinaya ilma 5 salaadood unbaad ku ekaanaysaa 5 salaadood waxa laga yaabaa markaas aa u gasho inaad sidii qaar la sheegay aad xisaabiso wax adduunka oo aad iska gasho xisaabta markaas salaada gasho markaa 5 salaadood ma hesaa kaaga khasaaraan hadhow inaad noqoto inuu khaasir marka runtii qofku quruur la yimaado maaha markaste waxaa la sheegay inuu Abubakar oo ahaa maxay nabi maxamed waxa adduunka ku nool qofku ugu khayrka badan oo nabi maxamed uu sheegay haddii iimaanka maxay Abubakar meel la dhigo kafad la dhigo adduunka waxa maxay ku nool oo dhan iimaankooda dadka ku nool iimaankooda meel la dhigo waxa maxay raashix noqonaysa kafad Abubakar isagoo asxaabiga jeelikaasi qadriga inta la helay oo awal uu sheegay bil janna wuxuu oran jiray haddii aan lug ka mida dhigo maxay jannada lugta kalena igaalan tahay oran maayo maxay jannada oo dad waxay runtii ilaahay markaas ka baxo kana quruur la timaadana inaad markasta naftaada calaamatu weeyaan oo isku daydo inaad maxay aad tiraado waxa ma qaban inaad ilaahay sidaad u dhawaan lahayd afkalooda gasho weeyaan qodobka ugu dambeeya insha Allah ka doono waxa weeye الاستماع أما استماع الموعظة وتقبلها هو بداية العلاج. كنت قدر من قدر مهمة قفكو إنه لبيستو مواعظه وشيء كنت يصير المواعظ المؤثرة كنت قفكو إنه لبيستو شيء مهم وقفكو الضياء وقلب يسوع كانوا حوالي منه هذا واحد بدك يسمع يوم مواعظ مؤثرة وقفكم حيدا قلب يسوع كذا بدك يسمع waxay noqonaysaa qofka qalbigiisu waad kaanaya qaswada ama ku jiraya qalbigiisu laakiin qofka hadduu mawaacid dhageysto dadku saddex ma qaybsamaan qof waa qof mawaacid ku talax taga oo mawaacid wali mu'athirka markasta mawaacid baa u dhageysta qofna waxa qof ilaa waligeeda kaba fogaada oo ilaa waxa laga yaabaa ka boqo waligeeda maxay u dhageysanay qof marka labada shay inaan labadaaba ka fogaano qofku inuu waxaa muslimku wuxuu ku duulaa janaaxin ku duulaa waxa weeyaan alkhawf walrajaa marka qofku labadaaba isku miisaamo inay maxamed wuxuu lahaa khayru umuur awsatuha runtii waa muhiim inaan ummadku waxaan ahay alwasadiya marka inaan wax kasta wasadkaan qaadano marka inaad qof muwaacida u dhageysto oo soo kala haw yeelo maaha waad dhageysan kartaa muwaacid laakiin taqabul baa laga baahan wixii inaad hirgeliso waxay taasi ka tahay iyo ma huwa min bidaayatu al-ilaaj kunti ka shanta qodob baan ka hadalnay labadii fiidiyooyo hore aad daawada channel dib u noqosho qanaadka daawo soo kala wax soo adnaa fariya farankaas iyo afma shan ka soo hadalnay 13 qodob in la tacaalo xarabnaa inaan insha Allah hirgelino sanadka ama 12 bilood sanadka باذن الله تعالى تتحرجوا توصل لها هذا المسنتين وحيها الخضي ان شاء الله وحيها
أو أن وافقينا مع محايد بتوفيق من عند رب العالمين بكتمل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. qodobka ku dira ugu dambeynta haddii uu qalbigaagu uu siga ku jilci waayo buurta la dagaal soo daawado ka waxaad dareemaysaa in marka halka kaliya lagu dhigo iyo meesha aamusnaanta iyo xasiloonida ka jirta in qofba meesha joogin marka waa dadkii meesha lagu aso kaliya cid kale oo joogto meesha ma jirto marka haddii taasna xog u tiri weyn quraanku xog u tiri waayo ترون هانتي حررنا محمد وأحد بهانتم النجود البيوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتأثر يعني قف عن كنت تأثر القرآن تقف أصبح أولي من ملك النبي صلى الله عليه وسلم قصد القلب ملك بك إن شاء الله تعالى وأنا سود بنا عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى